wuxuu yiri xisbiga iyo garxajis ama garxajis iyo xisbigoodu waxay noo soo gudbiyaan oo ay dhulbaante waxa weeye u soo gudbiyaan xuraanka dagaalada iyo basaasnimada khaatumada aad ku soo celcelinaysina waa qayb ka mid ah Soomaaliland halkana ma talala libaaxi wuxuu sitaa calan cad waxaan ku sheegaynaa shirarka iyo gaafmeerka iyo daarud masalxashada iyo mahad celinta iyo qorshaha inta aad qarinaysiin inta kaleba dadkani way la socdaan mararka qaar kood waxaan kugu tilmaamaa in dowladdiina meel laga wada qaaday islaan xilligii dagaalka ka soo hadli jirtay galbeedka Soomaaliland oo oran jirtay hebelow fasax ciidanka fasax haddii aad ku ducaysatay waxa weeye in garxajis iyo habar jeclo garbaha isu jeediyay ay kula dagaalamaan maalin maalmaha kamid ah waxaynu sugaynaa inta ducadaada la soo aqbalay saadaradeed garxajis wuxuu ku tilmaamay ummad basaasiin ah oo dhulbahantay waxa weeye u shaqaysa taasoo milgada iyo anshaxa ka baxsan waxaad ugu tilmaantay waxa weeye tolkay aad ku tilmaantay waa fake news waxba kama jiraan waana aragti gaaban waana ku doqonnimo waxaanu anagu bulshooyinka u disano waa la yaqaan hadaanu garxajisnahay waa nabadna nin waalan iyo nin wadkii galay baa diida anigu labadaa garan maayo ka tahay ugaas Cabdiqaadir Xaaji Faarax Xaaji Cilmi oo kamid ah bahda dhaqanka Soomaaliland oo si gaar ah uga hadlay telefishinka bulsho hoteelka Daalo ee magaalada Burco ayaa waxa uu ka hadlay hadal dhawaan u jeediyay mid kamid ah garaadada Sool ugaaska ayaa ku tilmaamay hadalka ka soo yeedhay garaadka inuu ahaa mid deelqaaf ah isla markaasina aan munaasib ku ahayn inuu ku hadlo qof madax dhaqameed ah waana kan ugaaska oo qodobadan iyo kuwa kale ka hadlaya waxaan jeclaan lahaa inaan halkan kaga hadlo dhowr qodob oo ku saabsan arrin maalmahan social media-da dhex maaxaysay oo cayaf laga dabay isugu jirtay duurxulna aan ka madnayn laakiin qof kasto waxa weeye qaangaadhi uu fasiran karayo ama fahmi karayo oo ka soo yeedhay garaad kamida garaadada dhulbaante garaad Cabdirashiid Waraaba Dheere oo had iyo jeer dadka cunfiga iyo ku ololeeya xumaanta iyo jirdiidka waxa weeye iidoorka ah garaadkaasi waxa weeye waxa uu ka hadlay dhowr qodob dadku wuu isdagaalaa 10 qarniyo Soomaalidu jirtay way isdagaalaysi way isdilaysi way heshiinaysi haddana way isdagaalaysi haddana way heshiinaysi intaaba way saysatay laakiin kulliba waxa weeye hab dhaqanka waxa weeye iyo milgaha hadalka uu leeyahay gaar ahaan dadka madax dhaqameedka waxa weeye bulshooyinka u metela waa inuu had iyo jeer noqdaa mid asadoodan leh oo had iyo jeer deesar rigta oo wuxuu doonaba aan ku hadal